السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وأنا دين سلامي أدونكم ميل والباد كجوكتان كسر هذا channel كينا منى صوما ولا شينا منى صباح ونكسنا يا إذن الله يا صباح يا إيتاي وجدان وسدح ساعة يا بر ما أنتوا السنين إن نصاع بريق أيان لين هني حسد أيان كجري نصاع جديس أيان روا إن أن قضدي يعشدي أن هالمردبك أن صو صار أن كسطور إن شاء الله إن قضدي عشدة hadda lama cunaayo laakiin sababtan u sameynay waxa waaye waqti badan inuu ii soo haro ayaan rabaa asxaab badan ayaa ila soo xiriirtay oo aad iyo aad uga cabaadayo inay stress badan yihiin inay qaylo badan yihiin in dulqaad uusan jirin oo yacni ilmihii aysan u dulqaadan karin in ilmihii waqti loo waayay marka insha allah jadwalkayga aniga wax markaan ka bedelay isbedelo badan ayaan dareemay oo aan jeclaystay inaan idinla wadaago si idinkana insha allah aad ugu faa'iidaysataan asxaab badan ayaa already ila soo xiriirtay oo idhaahday maasha allah wax badan ayaa nolosheena ka bedeshay waan ku faa'iidnay oo jadwalkaadii wuu inoo hagaagay marka insha allah idinkan inaad tijaabisaan ayaan jeclahay wax walbana waxaad ogaataa dulqaad ayaa loo baahan yahay iyo calool adeeg maadaama jadwalkaani hore aadan u samayn jirin waxaad ku qasban tahay in aad isbartid wax markii la baranayo saa ognahan waqti ayay qaadanaysaa dulqaadna waa loo baahan yahay biidni illaahi alkariim okay jadwalka oo jikada ayaan rabaa inaan ku hormaro iyo cuntada qaasatan labadaas ayaan ka hadlayaa maadaama ay tahay labada shay ugu muhiimsan oona ugu yacni waqtiga dheer naga qaato waqtiga inta badan waxaan ku dhuminaa jikada ayaa lagu dhumiyaa quraacdana jika ayaa la galaa qadada jika ayaan ku jirnaa cashada jika ayaan ku jirnaa maalintii waxaa laga yaabaa 3 waqti inaad jika aad gashid howl badan aad maantan aad sameynaysid oo dhanka jikada ah hawshan aanan kaa yaraanaynin waqtigana baraka aysan lahayn marka insha allah technique yar oo fudud ayaan rabaa inaan idinla wadaago oo idinkan aad samaysaan school ayaa dhigtaa hadda online course ayaan hadda qaadanayay nusaac break ayaa leysiyay nusaac ayaan waxaan rabaa qadadii cashadii in aan soo diyaarsado subaxii markii aan soo kaco waxa ugu horeeya aan sameeyo waxa waaye listiga ayaan fiirinayaa maanta maxaa ii qorshaysan maanta maxaan karinayaa cuntadii ayaan la soo baxayaa si barafka oo iga sii dhaco bareeg yar markii aan helo jikada ayaan imaanaa cuntadii ayaan isku sii dardarsanayaa dabka ayaan u gaabinayaa waxa ugu horeeya horta u baahan tahay waxa waaye inaad jadwal cunto aad samaysatid oo adi qiyaas ahaan aad ka qiyaas qaadatid haddii aadan rabin inaad qortid oo qiyaas ahaan wixii guri ku yaalo aad ka warqabtid iyo waxa aad karin kartid insha allah maanta waxaan rabaa inaan sameeyo casho ahaan maraq ayaan sameynayaa oo broccoligan ayaan ka sameynayaa iyo karootadaas aad u jeedaan waxaan kaloo ku dari doonaa cheese ayaan ku darayaa caanaha oo fadhiyo oo whipping creamka loo yaqaan ayaan ku darayaa hadhowna malawax mise waffle ayaan insha allah u karinayaa qadadana waxaan karinayaa kuskus yar iyo bariis yar iyo digaagiisa iyo qudaartaas iyo ansalaatadii intaas ayaan rabaa insha allah in aan nusaac aan kusoo gabagabeeyo maadaama nusaac bareeg aan leeyahay afarta dab ayaa hal mar isla wada shidayaa macal ovenka waan shidayaa dabka ayaan saaraa waan u gaabinaa waan fiirinayaa insha allah okay waxaa kaloo aad iyo aad u wanaagsan hooyo caruur leh caruurtaada iskuul ama xanaano haddii ay dhigtaan in jadwal aad ku socotid oo hal waqti yacni la wada cunteeyo saacad hebel inaad quraac aad siisid saacad hebel inaad qado aad siisid jadwalkaasna waxaad ka tusaale qaadanaysaa ilmahaada haddii iskuul ay dhigtaan xilliga iskuulka la cunteeyo ilmahayga qaasatan haddii aan ka hadlo 5 saac bar ilaa 6 saac duhurnimo ayaa qadada la siiyaa xanaanada weli way yaryihiin xanaana ayay dhigtaan okay xanaanada saacada qadada la siiyo ayaa anigana guriga siinayaa haddii ay weekend ay tahay haddii ay tahay ii sheeg maalin fasax lagu jiro yacni isbedel in uu dhaco lama rabo sababtoo ilmihii already wiigiibo 5 waqti ayay kaa maqan yihiin ee iskuulka ay kasoo cunteynayaan ama xanaanada kasoo qadeynayaan sidaas darteeda labada biri ee guriga ay ku joogaan jadwalka inaad ka qastid waa laga fiican yahay samar hadday tahay ayagana sidoo kaleeto ilmihii cunto xumo ayay bilaamayaan jadwalkana aad iyo aad ayuu ugu wareerayaa ilmahane sometimes waxaa laga yaabaa qadadii inaad usoo dedejiso oo ilmihii inay cuni waayaan ama sometimes ilmihii qadada inaad ka daahayso oo xanaaq iyo dagaal iyo qaylo iyo stress meeshaas oo ka dhashto waxyaabahaasoo dhan ayaa rabnaa in aan joojino oo aan yacni meesha lagu xiro waxaa kaloo ogaataa bini'aadanka waxaa loogu talagalay 3 saac inuu wax cuno 3 saac inuu wax cuno ilmaha haddii quraac ay kaa cunaan 2 saac 5 saac 5 saac bar
6 saac xataa iska dheh inay qadeeyaana loogu talagalay 9 saac markii la gaaro qadaya casiri yar inaa siisid 12 saac fiidkii markii la gaaro casho inaa siisid haddii casho markaa siisid ilmaha baahi ay qabtaan okay ilaa 3 saac ilmo rooroon hadday ku joogaan ay soo jeedaan wax yaroo ii sheego oo micno aanan lahayn oo caloosha ay ku seexdaan hadday fruugta noqoto hadday noqoto boorosh yar hadday noqoto rooti yar yacni habeenkii ay ku seexdaan ayaad siinaysaa marka jadwalka cuntada waxay aad iyo aad muhiim u tahay cunugii ii sheeg sokorta inay ka dhacdo ayaa ayuu ka hortagaa ilmaha iyo anagaba dadkeena waaweyn jirka bilaadanka haddii sokortaadi hoos ay u dhacdo xanaaqaada ayaa degdegayo waa careysan tahay yacni waa dagaalamaysaa marka sidaas darteeda sokorta inaysan hoos u dhicin ama energy levelkaada hoos intuusan u dhicin waa in jadwal cunto aad samaysataa oo saacad hebel aad ku cuntaysaa saacad hebel maxay ahayd lagu cuntaynaa saacad hebel cashada waqti hebel aan la cuntaynaa adiga hooyo ahaanne waxaad maxay ahayd kuu fiican inaad sidaas aad samaysid sababtoo waqti hebel markaad cunto aad ku cunaysid enerjigaada ma hooseynayo mar walbo 3 saacbo ilmaha cunto ayay cunayaan adigana cunto ayaa cunaysaa isku enerji ayaa haysan inta badan waxaa waaye ilmihii ayaa enerji badan waalidka enerji ma lahan oo cuntadii ayaa ku yar ama cuntadii xilligii loogu talagalay ma cunaan marka ilmahaasaad ugu fikiraysid in xilli yacni saacad cunto aad ku siisid adiga hooyo ahaana waa inaad iska fikirtaa maadaama adiga iyo ilmihii isku jirkiin yani isku si maadaama u shaqaynayo oo enerjigaba yacni jirka uu soo saarayo waa ina adigana aad ka fikirtaa qaabka cuntadaada aad hagaajisaa saacad hebel aad ku cuntaysaa marka insha allah xanaaqaada markaas wuu yaraanayaa jikadaada mar walba way kuu quruxsanaanaysaa hal mar ayaa maalintii dhan waxaa laga yaabaa jika inaad geshid oo cuntadii oo dhan yacni aad kasoo tuurtid oo aad hagaagsatid waqti badanna wuu kuu soo horayaa oo hadhow ilmahaada waqti aad kula qaadatid haddii waxaad ku baranaysid haddaad ku shaqaynaysid stresski iyo xanaaqii caradina way yaraanaysaa marka jadwalka cuntada aad iyo aad ayay muhiim u tahay wiigiba mar inaad fadhiisatid oo hal mar aad yacni jadwal yar aad samaysatid oo wiigaasi 5 beri aad ku moodid insha allah waxaa kaloona aad iyo aad aan idinkula dardaarmayaa ilmaha inaadan jahwareer aadan ku ridina jadwalka iskuulka iyo jadwalka guriga inaad isku mid aad ka dhigtaan ilmihii markaasi dariiq toosan ayuu helayaa haddii kaleeto saacad hebel maalin cunto haddaa siisid maalinta kaleeto saacad hebel haddaa siisid caloosha iyo maskaxda xitaa islama soconayso marka biidnillahi alkariim taas ayaan idinkula dardaarmayaa haddana waa kanaa nus saac gudihiisa ayaa cashadii dabkiin soo saartay qadadii dabka ayay ii saaran tahay saladkii yar ayaan hadda jaranayaa digaagan hoos ayaan gashanayaa ovenka maasha allah dabkan waa u gaabinaa markaan u gaabiyo bareeg yarba markaan helo waan kaca waan soo fiirinayaa meel dheer ma aadaya guriga ayaan joogaa marka jadwalka cuntada wax badan markaad ka bedeshaan caradiinana iyo dagaalkiina iyo isqabadkiina wuu yaraanayaa ii sheeg caloosha iyo maskaxiyana way u fiican tahay in jadwal wax lagu cuno waxay kaloo kaa caawinaysaa waqti badan in aa heshid oo faamiligaada insha allah waqti aad la qaadatid marka insha allah asxaabta jadwalada kaleetana waan idinla wadaagi doonaa asxaab badan ayaa iga soo codsatay insha allah idinkana haddaad soo tijaabiseen ama feedback aad ka haysiinne waad ila wadaagi kartaan biidnillahi alkariim aad iyo aadna waxaan idinkaanga mahad celinayaa sida quruxda badan oo mar walba aad ila socotaan oo aad ii daabataan iyo ducadiina ilaahi subxaana watacaala ha inoo wada aqbala jazaaka allah khayr ayaan idin leeyahay asxaabta channelkii ku cusubna aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa insha allah khayr ayaan idin dhaafay inta kale video aan ku kulmeyno khayr ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh